وهرين بسم الله أنيقو كبلابي إذ الكين ببلشوي أن بلابي وجيتكن أغيسي سيدين سي مشرحة وجيا وست دور شذان ويستاقي مضان عبد الديق شيخ يعقوب مسؤول ويا أمانا دادكو أي أبوغينو وقونتي سسريسو أولا آمين ويو أنا اللوغ الرياقي نغو اسكو دوبان عبد الديق وهبي عدكي نو كرسي غازو هذي بلشو سيدا وجيا ويس بلشادة آذناها كنول أبشريستو مرتيدا أقبل ويو إذين نوادي استاهشان أربجان هدادو واد أمان انتين عودتكي وقال وي أجيبين كرسيق عبد الديق يعقوب أقوياهن كرتيلا إن إقياره استهيلا وناقو أنفيعي بلشاد عبد الديق باء وموذن أقوياهن كرتيلا إن إقياره استهيلا وناقو أنفيعي بلشاد عبد الديق باء وموذن انبي عاقلونو الريمين يا انبيد ايهن نفولين بابال قالو انبيد وانين امنو بلشواذا اقبالا تنسيو دمان بلشواذا اقبالا انبي عاقلونو الريمين يا انبيد ايهن نفولين بابال قالو انبيد وانين امنو بلشواذا اقبالا تنسيو دمان بلشواذا اقبالا شو انبيد عافمات قريبة غيالي عيدا ناسي لقاتقي عانا بضانا الله عمريقينا ديري الله علوقينا نافد حقي عالي البال لقوقي عاني يا عيلنا مدتوي ما شاء الله aad baan u faraxsanahay maanta soo dhaweynta ay soo dhaweyseen qaadintaaka ay soo qaadeen taageeradiina aad baan u faraxsanahay ma sha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli marka ugu horeysa ilaahay aanu mahad celinina ilaahaygi meeshan isku keenay qulubteena mideeyay hal mar mataqaanaa netusay inaan mataqaanaa aan hal ruux aan ku caanushabano ruuxaasoo na matali doono doorashada soo socota 2027 insha Allah biidhnillah kursiga baarlamaanka MP Wajir West constituency waxaan u mahad celinayaa culimaadudiinka dhalinyarada haweenka mataqaanaa cuqaasha beesha mataqaanaa inta iskugu timaaday reebahay waxaa kaloo jiro chiefafka meesha iskugu imaaday taageerada ay taageerteen aad baan ku mahadcelinayaa siiba Sheikh Ahmed Sheikh Rashid oo taageeray oo taageero buuxisiyay ugaaska beesha ugaas Maxamed oo asagana taageeray odayaasha reerka dhaqanka culimada haweenka dhalinyarada dhammaan oo taageero weyn siiyay waad qaadeen waa sharfantiin aad u maasantiin maanta farxadeena lama soo koobi karo taageerada ay siiseen waxaan aaminsanahay inaad ugu doorateen inaan ahay hoggaan aragti dheer leh hufnaan iyo daacad ah waxaa kaloo rabaa insha Allah bulshaweynta ku dhaqan
Wajir West constituency inaan u sheego hogaankii imadeyn lahaa oo mataqaanaa horumarkeen lahaa inaan ahay waayo khibradeedaan leeyahay maskaxdeedaan leeyahay waxaan awood u leeyahay aan aaminsanahay inaan kari doono xilka insha Allah waxaan aaminsanahay ninkii noqon doona insha Allah ninkii mideyn doona ummadda ku nool Wajir West constituency iminka hadda haddii reerka hoosaan ka dhashay ay soo qaadeen ay taageereen safarku waa noo dhiman yahay horey aan u soconaynaa waxaan ka codsanayaa reerkan inay mataqaanaa ii geeyaan beesha geyliblo inay ii geeyaan ka bacdina beesha geyliblo markaan ka tagno dadyowga iyo bulshada ku dhaqan bulshada sharafta leh ku dhaqan Wajir West constituency in lii geeya ayadana ay qaado insha Allah waxaan rajaynayaa tripkan in fursaddan la siin doono si aan mataqaanaa hawshii madaxda naga horreysay aan hore u sii wadno insha Allah I believe I'm the best person suited for this job. I have the ability, I have the experience, and I have the strength to do this job. I have the capacity to do this job. I have an experience of 20 years plus in the corporate world. I've developed very startups company to a multinational company. And I have what it takes to do this job and to take Wajir West constituency to the next level. I therefore urge all Wajir West constituents to give me their support 100%, inshallah. And I believe I'm the right person for the job, and I'm a unifying factor. I'm the guy who's going to bring, inshallah, unity in Wajir West constituency, regardless of all tribes, regardless of any person living in Wajir West constituency. waxaan aaminsanahay inaan cadaalad ku dhaqi doono galbeedka Wajir baarlamaanka insha Allah constituency Wajir inaan si cadaalad ama taqaanaa aan dadkeena ugu adeegi doono cid walba oo xaqeeda ka maqantaan u keenay doono cid allaale ciddii Wajir West degana aan taqaanaa cadaalad iyo mataqaanaa horumar aan gaarsiin doono. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.